waxa kaloo jira abeebo deegeena amaantaale ee quruxdaale ee sida u wanaagsan haddana dhaliil kama qatana haddana ku dhamaan dhaliil ka qatarin aan dhaliil kama qatana abwaanadu iyo de bulshaduna dhibaatada geel horta aad bay u badan tahay dhibaatooyinka geel uu leeyahay de mar waa dhici oo geel waa la dhacaya oo saraaya iyo geelan ba ka bilaabaya geeli mar wuxuu sababaya colaado deeray laba duul on dal wada degin on dab wada shidan dagaalamayay mar geeli waa la xadii ilaahay ku samoogay dhibaato jireed baa lagu qabaa marka balmaanta waxaan eegi doonaa dhibaatada geela lagu qabo iyadoo tusaalahan de dhiciisu inoo harsan yahay oo kaga faalan doono geelashii la kala dhacay waayo nolosha gabiga Soomaaliduba geel beebad de wax weyn ninka qiimihiisu wuxuu ahaa geel helidii mar haddii ninku geel leeyahayna qiimo kama qatana waa nin milga iyo sharafaysta siyaasadda oo dhan iyo colaad oo dhan geel ku qasay waa kiinka lahaa wax weey wuxuu ninka geel leh waa ninka bulshada Soomaaliyeed ee xilliga joogtay ugu sharafta badnaa baasha ama nin boqor ayuu isu qabay geelka de wax weyn nin kastaana wuxuu doonayaa sharafta qeyrkii taabay inuu gacanta ku dhigo marka geela dhibaatooyinkiisu aad bay u badnaayeen nolosha Soomaaliyeed marka la eegana de geelashu dhowr nooc bay noqonayaan la kala qaaday marde waa geel yar oo amba kadina amba laba kadina oo de waxa weey farda lagu gabagabeeyay lagu dhacay kaas xisaab ma leh waxaan doonaynaa balan ku hadalna geelashii waaweynaa xilliyadii ay dhaceen geel kastaba xilligii la dhacay iyo halkii lagu dhacay iyo tirada geelaas intuu ahaa iyo wixii suugaan laga mariyay ujeedadu waxay tahay taariikhda waa la kaydiyaa geelaha qaarkood baa 13 xabaarooda oo saami qaybsiga iyo abaanduulka iyo wixii lagu xiran jiray weyn eegi doonaa geel colaadu dhalin jiray colaadaha iyo guud ahaan Soomaalida maxaa colaadaha ku keeni jiray intii colaadaha ku keeni jirtay iyo xirsankeedaba weyn eegi doonaa bal maanta waxaan eegi doonaa dhibaatooyinka geela lagu qabo iyo sidee u farabadnaayeen waa hagaag nin la oran jiray mataan shide ayaa geelooha dabeeta geeliiba saluug buu ka muujiy dabeeta wuxuu taxayaa qodobo aad u tiro badan oo geela lagu qabo wuxuu oranayaa salahan maalintii uu dabka bayray ilaa maanta isugu muu daba socday wax walba oo wuxuu libaax baan isku ka mudan shisheeyaan isku ka aragnay gaajo iyo diif iyo harad maad ku qabatay hadii ilaahay ku samoogol yahay sabada oo yood ban hayeen basaqbar kaaga shubay dib oo dhamma ku samutay wuxuu sidaan dab uga bayray iyo la saban kan joogo waxa weey sahlimaysid geel yahow intaan soodi ku maray wax badan baan saraar laga baqiyo saraar laga boqo saar la ku raray wax badan buu shisheeyay isigay arka sahayaa shakad carayub lagu sido suunka lagu giijay u sifeeyay soobay dartaa subici gaabna oo qorigii u sifeeyay soobay dartaa subici gaabnaaye waayahay subaxyana ku raad guray adoo saydmay waran weere ku sahayday garanuug baryana saban xumaadkii waayahay saqdaxana biya kaaga shubay sabadan oo yoode 30 bay wax dheeriin intaan kugu saloognaaye salaad aniga igu waajibtiyo soonamaan gudanay faral iyo sunnaba waaniga kaaga saahiday sidan qabo saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo boole kuwii nagaga ka siibtay waa wada saraakiil inta sababtay aadmiga hadii lagu su'aalayo sidan qaba asfala saafili kama soo fiisin buu naarta halka u hooseysa ayaa geelay markaa dhibaatada ayuu ka warramayaa buwanku geela lagu qabo iyo adkaanteeda iyo canaabta badan ee ay leedahay geela iyo hawlihiisu waxa uu ugu xogsiinaya horta waxa ugu mudan oo ninka geel jiri uu leeyahay tilmaan qaba ramad geel nin maalay kibir buu la rafta oo ninka geel jiri waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah inaanu cibaadada iyo waxa weeyaan shaqo ku yeelan cibaadaduna waa waxyaabaha asaasiga ah ee qofka noloshiisa loo abuuray
dabeeto waa kan ka calacalaya isagoo aynigiisu haatan sodonku afka uu la galay haddana inaanu kubkiisa haatan weysa marin oo Soomaalida waxaa tirada kub geel jira kor looma maydho kub geel jire kor looma maydho dee ninku waxa weeye xilliga uu biyo helaa iskaba kooban inta kalena dee waxa weeye uska giisaasi isaga qab kula jira marka nin geel jiray bay inta dad ku yimaado biyaan ku maydhaysi dee foosada waxa weeye haanta ku taalaba uu ka ilaynaya isaga dhiibin weeye wuxuu tilmaamayaa dee in dhibaatada ugu badan lagu qabo haraad iyo gaajo iyo diif badan ay ka soo gaadho ninka deegeela la socda waxyaabaha kale ee dhibaatada badan ee uu geelu leeyahay waxa kamid ah inuu colaado horseedo dirira lagu hoobto inay dhex maraan labadan qole ee midna geela leeyahay midna aanu lahayn deegeele uu doonayo inuu dhaco waxyaabaha marka walba ninku waa dirir joog way dhaqashada geela Soomaalidii hore waxa kaga sii lur badnayd oo kaga sii adkayd haysashadiisa abwaankaasina intaas uu kaga baxay dhibaatada geelo ay leedahay ninkii la oran jiray xaya galay ayaa dabeeto nin geelaad iyo laxaadkii oo amaanaba geela ku dheeraaday ilaa uu kaba gaarsiiyay halka uu la taagnaa amrana manaba uu mudeen la sameeyay bilga xagga nabiga ayaa geel fadlan bulaha geeli baa dabeeto caana yareeyay arrintii baa dabeeto ku soo yara foladkaatay inankii geela la raaciyay ayaa godasho dhuubtay gaajo daraadeed dabeeto wuxuu tirinayaa geeraar qaayib la yiraahdo oo kaga waramayo hashii qaayib iyo oo guud ahaan uga jeeda geeli iyo inankii la raaciyay iyo diifta haatan ka muuqata wuxuu bal qoyaalniidaada qaayib oo xaq marayd iyo saddexaad la qaydiyo qoltidii ramanaydba inankii aan kugu qaybshay intuu gaajo la qaaduu qoloftiinu ekaaday maqusaaran go'ayn iyo qasnada kugu laaban qorragan hambaliyay wadigan wuxuu qorragan hambaliyay hadaad qoyn kari weydo maqusaaran go'ayn iyo qasnada kugu laaban halkana wuxuu ga galay hadana arigii uu deyrshay oo dayrada ku qoray iyo haatan sida ugu muhanayo uu leeyahay warmaraha arigii waan ku gafay astaghfirullah buu ka taagan yahay arigii dabeeto wuxuu ku leeyahay way qaariyo wanka weyn iyo kariyaa ku qalaadiyo qumbayaasha la dhoobiyo kolkan qorculay daayay ilaa waan qatalmay deegeelu inta badan de waan sharaf iyo milga iyo waxa laga dheefi jiray markuu ninkii ariga dhaqanayay uu balfay kiriyaha wadayna uu qoorsaday qumbayaasha tusalahan qumbuhu isagu wuxuu kamid ahaa agab subaga lagu shubto gogna waa la oran jiray gogna waa nooc subaga lagu shubto wana ubadi kamid oo ubadiyo laakiin haraka samaysan waxa la sameyn jiray tusalahan haraga haragu wuxuu ka kooban yahay in dhogor leh iyo inaan dhogor lahayn waa inta hoose hilib xigeenka iyo intan sare dhogorta leh marka waxa la magdinayaa oo laga salaamaynaya dhogortii inta sare inta hoose wax lagu shuban maayo inta sare kolka la magdiye laga dhameeyo wixii dhogor haayo dhan ayaa asal lagu shubaya horta ciid baa lagu shubaya inta ciid lagu shubo ayaa afkana laga xiriyaa markaas qoriyo si isku talaaba afka looga qabanaya ciidaas ku qalalaya markii ciida ku qalalo ayaa inta ciidii laga daadiyay ayaa asal lagu shubaya guntiisa ayaa waxa weeyaan nadiif laga dhigaya dabeeto subagii ayaa lagu shubaya subaga kolka lagu shubo ayaa afkana laga xirayaa oo dumarku waxay ku shubayaan subagii geeda adari ayaa lagu udgunaya amba geed xamariga ayaa lagu udgunay wadar xamariga waa geed aad u udgoon waa lagu shubaya dabeeto wala dhoobaya dhoobidu waa maxay dariiq baa saa loo marinaya kubada hadii xitaa kubad laga dhigto mar kaliya inuu afkiisaasi uu wax noqdo laga yaabo kulka xilligii guyaada iyo barwaaqada laga baxo ee uu xilligu abaar uu noqoto ayaa dabeeto dhoobtii la jabinaya afkana waa laga furaya udugiisa mayl ayay ka soo qabanaysaa udgoonkiisu kaasuna waxa uu kaga waramaya dhibaatooyinka lagu qabo ama lagu qabi kara geela waxa kamid ah dhibaatooyin fara badan oo lagu qabo geela dhibaatooyinka geela lagu qabo aad bay u fara badan yihiin oo xagga dhaqashadiisa inta badan daaran waxa kamid ah heesaha waraabka ayaa inta badan waxa lagu faaleeyaa dhibaatada geela uu leeyahay iyo canaabtiisa waxa kamid ah geeli baa la soo deynaya geelu saynu soo sheegnay waa geel aad u tira badan waxa weeyna nafaylku taagan yahay horta من فايلكو تاغان waa ceel baa laga waraabinaya kolka hara laga waraabinaya waa sahl oo degeel harada balaaran baa laga soo deynaya haliba kaalinta kaga hagaagto ay biyaha ka miiganaysaa oo ka cabaysaa kolkaas uu yahay dar amba uu yahay laasku
inta badan waxa weeye ceelasha laga dooxyada laga sameystaayo inta badan de waa sintaada in leeg ayaad qodaysaa oo kale dabeeta geel halkaas aad uga waraabinaysaa go'aagana waad u xidhaysaa isagoo waa iska fududiyo dawaa marad sii marad foorsanaysa marad soo daraysan way laakiin kolku ceel dheeraayahay madada gunta loo fadhiyo ninna uu faylka u taagan yahay xarbada la isweydaarsanayo waa kolku hawsha badan yahay casrigii dambe waadaan baa la helay dabeeto geel waa fara badan yahay hadba raabaa lagu soo daynaya raabadaas qaar baa kamiin qaba oo darka jibinaya darka rigida ee rabbi alkumay ee raguna dhigay riix Soomaaliya riix meesida Soomaaliya waa isku soo ridintii way waa la waraabinaya waxa weeye waadaantii baa la soo dhufanaya xarigii waadaantu ku xidhnaad faruhu kala baxaya faruhu la baxaya noqnoqodkan faraha badan ee dabadkii la celcelinayana dhibaato ayay keenaysaa dabeeto heestan waxay tilmaamaysaa jeeru saxbada sarta kala baxo ama saraaraha suman adaga iyo seeda kala jara sida kuma tago waa koow waa geeli baa laga hadlaya mar labaad baa wuxuu leeyahay jeeron laba dhidid oo dhafoorka oo waxa jeeron laba dhidid oo dhafoorka mid badan u rido kuma dhaarto kuma dhidhiyo feedha dhiman bay dhaami leedahay feedha dhiman bay dhaami leedahay waxa ana dhabarkiyo meel dhaxdaasoon jeero dhacay baan dhowr isleeyahay way hadba garabaan ku gundinaya hadba gacan baan kugu guraya feera beelaye sawna gama fulo waa heesana waxay wada tusmeynayaan dhamaantood dhibtay leedahay calool weyna oo cirbadana aska waagiyo asar dabadi way cabaysa heesaha xiriir salaam bilaha rabadaanka aanu leenahay de waa xiliye la cibaadaysto hadana geelo mar walba wuxuu u baahan yahay hadii kalkiisii gaadho halkiisii dayn la geeyo way bilaa ramadaan on rag afurin on ragu afurin bilaa rabadaan aan ragu afurin roob daa iyo raaxa doonay geeli baa la hadlayaa maalin hawleed oo kala haray wiil hagoogta kuma soo waxa wiil hagoogta waa habaar qabay waxyaabaha kale kamid ah geela hawlaha loo qabo waxa kamid ah colaadaha ayaa iyaguna kamid ah oo waliba aad iyo laxaad u dhib badan oo ninka deegeela la socda uu u baahan yahay mar walba inuu helo nabad waarta nabadana la heli maayo waa isaga colaad sayma kula galiye suubninkii dhaqay seexan waayo soor la godo iyo siga la hor socay macna waxa weeye ninka geela leh dhaqashadiisa waxa uga sii daran haysashadiisa soo sheegnay oo in geela la hayaa geelu saymo dhashay geelo saymo dhashay waxa weeye waa la kala qaadaya waa la isugu bu'aya waa la isugu dhimanaya ninka dabeeta geela leh dantu waxay badaysaa inuu mar walba u soo jeedo waxa weeye ableyda iyo soorku ay gacmihiisa ay kuwa bariistaan hadii taa la waayo miya waa laga saayinayaa waa laga dhacaya de waxa weeye wadaadna dhaqashadiisu way ku adkaato nin wadaad deegeel ma dhaqo nin warangala oo gaashaanka iyo teeruhu gacmihiisa ay kuwa bariistaan oo waxa weeye kolka ay colaad timaadana u jilib dhiga oo waxa weeye tafallaaruhu ay laabta kaga dhacaan ila geela waa lagu dhimanaya geela hadii lagu dhinto oo geela lagu dagaalamo geela salaba la qaadee geela sharaf darro kuma hooyeen marka waxa kan leh de waxa weeye ninka suub dhaqday horta hurday isagoo way kalaama baxeen ardaagu u jiifa lababa uga baqaya col uga baqaya mihigaana kuwaday amba ka waday bay rag hore jireen kuwaday amba ka waday kuwadayo habeen waxa weeye de habeen 15aada kuwadayo coldaada oo kala intan geliyay geeli ka soo qaaday amba ka wadayo anigu intan geeli soo dhacay nabad iyo waxa weeye nabad ku soo hoyday soo laabadkeeda saasa loo soconaya أمن خوف الليل وحولنا أمن خوف الليل كي هبين ونكو وذا السحر أبرز كي يوم الشيرين لباح أيضا يورر ولا حوق له وما في قدين أرد كسيس كي أواروف مدولين سيدان أسقع الكي ما أدون كلا شرار رقو ورورت واقيله ما أدون كلا شرار رقو ورورت واقيل وحينوت الماما يساعدنا قبل وحينوت الماما إياه عبد حرسي باتريا قبل عبد حرسي waxa uu kamid ahaa ragii suugaanta geela waxda ugu badan lahaa ninkii lahaa xooguga dhilatay lagu xuliyay xariiga loo gaabay ugu xigayna awr gurubsatay goosha la hureeca ugu xigayna gorof loo culiyay gaajabiyay dheh nin geela aad u amaana ayuu haa geel dhaadhiya geela aqoon badan u leh dabeetana wuxuu noo tilmaamayaa xilliyada
mar walba geela inuu u alowsan yahay amba helitaankiisu in dhibaato iyo hawkar loo maro si fududna geel inuu helayaa inaanu adduunka guudkiisa joogan oo dee mar walba inay dhac tahay iyo dhacsi iyo committedkiisuna inuu kaalinta hore yahay halay helida hooda loo leeyahay ku hayn kara in geel la hela waa hooda iyo qabna iyo sareeda ilaahay dadka uu ku beego laakiin hadaba waa tan ayaa ku hayn kara ilaa nin kastaba wuxuu u bu'ayaa helida baasaar wuxuu dhaaxaan dhurwaa ka cishiyo arka coof kale dhaaxaan carraaba wax badan ceelalya ahaaye ana cagacadaan kugu wadiyo calala jeexjeexan cadka suulku dhaaxu igoay caarada hore mariyowga qaarkood ayaa ninku bandar uu ka fogeeyay magaalo mi iyo sidaad oo manaabu jooga wuxuu la wehel yahay libaax iyo dhurwaa ayaa inta micida ku dagaalanta wuxuu haystaa waa geela laba cadoba waa u halis libaaxi waa u halis iyo bahalkii aaduga ahaa dadna waa u halis gaadana waa u halis marka dee amba waa cul weyn ku dhacaa amba waa gaaduhu waa col tira yar amba niman tira yar oo inta adoo ardaaga jiifa xerada xagga dambe geela qiimaha badan ka gura waxa la nin sheekha ayaa fadiis ku teoriyaa ragga waa kuwa geela soo dhacay waa nin dee booniyad inta ilaahay wax ka yaqaana kitaabka iyo aayaduhuna ay xirayaan waxay ragga maxaad u raaci weydiyood geela u soo qaadan weey in badan buu islaanta aayaadka quraaniga ku waani dhageysi way u yeelan way maanta dambe ayuu ragga cawrada ku qabay geela dhiciisa raac kolkii uu raacay la soo gaaray halkii loo ciil qabay ayaa ninkii raggii oday gura hal wanaagsan hal jireed wanaagsan buu dhagada ku dhufto markaas uu sheekhay kitaabka qabtay walba ka deysna go'an baale waa xare bartankeed baa la joogaa waa hadii lagu tooso waa lagu dilayaa ninkii baa naxay wuu iska weydaarto awr wanaagsan oo baayiray buu dhagada ku dhuftay haddana wuu isku duubay markuu arkay ninkeena laga lug baxayn oo gidiga caawstu leeyahay kana agoon baale ka daada in waa u bariyayo ayuu ninku dhawaaqo markaas waarna qabqabtaay xarada bartankeedu uga qeyliyay nimankii wax weey waa ragii la dhici jiray mugdiga iyo wax weey harka ay isugu toosiyeen ninkii wadaadka ahaana isagoo xiligiisii iyo sijaayadii ay u saarantay garabka ayuu yiri orod meel ku dhigaba waa niman caanageelna markaas la qabta muhiimadu waxay tahay geela dhicitaankiisu in marna cadawgaasi uu jiray marna cadawga kale uu oo aan xeerba qabanay xeerba soo qabtaa geela heydiisu marka horta saas uu dhibaato badan yahay oo lagu go'aa waxa kale oo loo heesaa geela cabsidiisa markuu tusaale ahaan geela la soo carraabinayo dhibaatooyinka geela laga kulmo waxa kamid ah iyadoo geela la soo wado ayaa meeshu waa meel cidla ah waa gaban goobi abaaroon cid deganay amba waa dhul gawaano laga kala guuray inta badan dhulka banaana waxa dee jooga oo ku nool libaaxyada waaweyn dabeetooyinku wuxuu ugu heesayaa goortu waa galab wiilku waa gaban kuma sida gudin gulo ku magan way cadibi jiray meel ciriiriya oo rako cartamay way ugu ciri jiray wuxuuna way cadibi jiray meel ciriiriya oo rako cartamay way ugu celin jiray geela dhibaatooyinka noocaas ayaa lagu qabi jiray waxa kamid ah sidii goronyadii riinji iyo gaban iyo hayeeya garana daaqane waa tan biyaha uga go'ay ee geeri lay biday waa ninkii gamuuta la oran jiray oo isna geela aad iyo laxadu yaqaanay baa la yiri gamuuto gabay dabeeto uu iska diiday markii hore dabeeto waa kiilaha cabdiyo gugayguna ma yara guuna waana gabayga dabeeto wuxuu kaga warramaya dhibaatooyinka ugu faraha badan ee geela lagu mato tusaale ahaan geeli buu gidigay maanta joogay dhurwaagii buu dhan ka wiray dhan cadow buu ka eegay dhan isagii baa gaajo iyo haraab qaba geeli baa waxay gaadhay amintii la soo carraabin lahaa xeradii buu ku soo shubay cunto saaka wixii uu afka saaray baa ugu dambeysay gacaanihii uu cabay xeradii buu keenay geela waa la tiriya tiradii buu dabeeto intuu saawagay buu tabay goosan geela isagoo waxba cunin ayuu haddana dib aan baxaya gidiga iyo habeenkii waa raadageysi gabayo banaan meel dhaxantu iyo dayradhaaftu ay ka dhacayso ayuu yurursanaya waa sanqadhageysi gidiga iyo habeenkii waa u socod markuu waagu oo qalac yiraahdo ayuu goosankii helaya wuxuu ku biirinaya geeli intii kale isagoo wali afka waxba gelin buu haddana geeli dib u dareerinaya oo geeli dib aan baxaya intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa waliba ana ka dhax galo ninka yiraahdo Mawlidu waxaan doonayaa gabayga gamuute geela iyo dhibtiisa iyo ka hadla hadii alla inoo ogolaado
maxamuud Suleyman Xaaji Xirsi oo maxamuud waraabe ku magac dheer waxaan soo gudbin doonaa isagoo cod wanaagsan oo codka gabayada loogu luuqeeyo ku luuqeyn doona insha Allah barnaamijyadan mar soo galin doona maxamuud waan aad uga mahadcelinay barnaamijyada ka baxa muuqbaayaha qaranka sida uga qayb galay waliba maansooyinka iyo gabayada oo tiriyo halka aynu ka dhaqaaqna marka inta badan qaayib laba qolo oo qabiila ah oo wax kala qabin qaatiyo qayli galiye waa geeli mar walba iyadu geelo wuxuu horseedaa colaadiyo in lagu goblamo oo raga isku dileen haddaan dirirtaa ragga daba maro alla hay dilo oo aan leedayn marka la dagaalamayo inuu cadowga sor fadhino inaan baqo oo adiga goobta ku baneeyo waa horta waa gunnimo alla uu leedilo aniga aan dhinto sababtoo ah wuxuu ku faanayaa duug baa jira taariikhdu way isqoraysaa inta waa la isdal haynaya geel hebel korkii la qaaday amba geel hebel korkii la qaaday ma lagu dhintay ayaa la yiraahdaa hadii lagu dhimo ceeb ka dhacday hadii lagu dhiman waayo taa waa ceebinteeda leeg asar kulul tahay oo cadceedsaday duul ka carara awar laga helay marka la isleeyo amba asar la iselo amba goraha la isleeyo halka la isku mutay la ku dagaalamayo waa inaan geela laga cararin qoor yaray qalin qoray joogtaba qora go'aaniyo qarrag bayal waa dhibaatada iyo geela mar walba heestana waxay tilmaamaysaa sida geela loogu mutido tumaatida waran ee wadnaha tagi wala tiiray lagaga ma tago